والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأن سلامي دمان أصحابتي قالقة دافع عالم ميلول dadka joogtaan waxaan maanta ka hadlaynaa hadduu rabbi raali ka noqdo mowduuc ku saabsan aamusnaanta ma tahay qof aamusan ma tahay qof hadal badan oo meel kasta ka hadla aamusnaantu waa xikmad sababtoo ah haddaad hadasho waxaa macquul ah afkaaga in ay ka soo baxdo haraya aan muhiim ahayn waxaa macquul ah inaad ku hor hadasho qof walaalkaa oo dhibaataysan ama dhaawac uu ka muuqdo saasay tahayna dhaawacaasi uu dhibayo marka waxaa qurux badan markasta inaad ahaato qof ku dadaala aamusnaanta sidoo kale haddii aad aamuso waxaa lumaysa haybadaada dadkoo dhanna way ku nacayaan laakiin haddaad aamusnaato waxaad noqonaysaa qof xikmadaysan oy dadkoo dhan ku tashanayaan say kaaga hadalsiin lahaayeen matalan haddaan soo qaato marka aad joogto klaaska iskoolka ama jaamacadda amaba barayfadada kale aad dhigato waxaa jira ku dhowaan kumanaan arday oo hareerahaaga fadhiya kuwaas oo markasta adig kugu mashquulsan mashquulkaasay kugu mashquulsan yihiin laba waa midun waa inay la yaaban yihiin hadalkaaga badan ama waa inay la qushuucsan yihiin aamusnaantaada because of haddaad markasta aamusnaanto waxay ku dadaalayaan qaabkay kaaga hadlin lahaayeen halkaana waxaa soo dhowaanaysa qof kasta oo kalaaskaas jooga ama goobta aad ku sugan tahay inuu adiga ku jeclaado because of soomaalida maxay mahmaahay soomaalidu tiribaa muxuu ahaa af daboolan waa dahab horena waxaa loo yidhi soomaali been way sheegtaa laakiinse kuma mahmaahdo marka aad doonayso inaad haabto qof qiimo leh qof haybad leh aamusnaanta waa inaad ku dadaashaa marka aan kuleeyahay ku dadaal aamusnaanta ma aha taa micnaheedu inaan ka wado inaad ahaato markasta qof aamusan waxaa jirta mar hadalka badan ay dani kugu qasbayso waa marka aad baabi'inaysa been lagaa sheegay ama hadal baraha bulshada ku dhex faafay kaasoo raad ku yeeshay dadka dhexdooda aad rabto inaad baabi'iso markaas waa ku waajib inaad hadashaa oo aad eedda iska dudaa sidoo kale marka dusha lagaa saaraya dembi aanad adigu lahayn taasna waa inaad ka hadashaa waxaan usoo qaatay hadda jumaladahan hadda aan kuusoo qaatay kuusoo tirinayo waxaan ka wadaa ama micnahaygu waxa uu yahay inaynan qasab ahayn markasta inaad aamusto laakiin aamusnaantu ay tahay xikmadda taasoo aad markasta ku guuleysan karto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu fadlan adoo mahadsan subscribe saar janalkeena gambaleelkana furo nala sii wadaag dhammaan asxaabtaada like iyo commentna ha iloobin because of waxay noo tahay dhiirigelin